go'aankana aan soo saarnay wuxuu ku saabsan yahay horta sidii loo xakameyn lahaa aaladaha ku qeexan meesha sidii loo xakameyn lahaa bulshada waxyaabaha ku hareeraysan ee mashaakilaadka looga hortagi lahaa marka wuxuu ku yahay runtii ay ku yihiin caqabad weyn dhaqanka dadka iyo sharafta dadka amniga iyo deganaanshaha arrimahaasa ugu xoog weyn asbaabta keentay inaan runtii laga wada hadlo laga shaqeeyo la joojiyo go'aankani waa go'aan qaran weeye hay-adaha qaranku hay-ad waliba shaqo gaar ay leedahay shaqooyinkaana waa lagu kor joogtayaa oo dee maamul baanu macnaha xukuumadda ka tirsannahay wasaaraddu ka tirsan tahay marka shaqooyinkii caadiga ahaa ee annagu aanu qaranka wahayna bay ka mid tahay markaanu qiimayno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaan xagga amniga waad la socotaa waxaa lagu gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegayno oo ka wada hadlayno qaarkood dadka waa lagu barmoodgarayaa xumaanta lagu barmoodgarayaa amniga lagu baabi'iyaa qarannimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabahaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh social kale oo dadka dhaqankooda leh aan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashan ummad ma noqoto waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo ku habboonaad xilligan go'aanka in la qaato anaguna waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay qayb ka mid ah dagaalka lagu jiro qaran Soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur ka duula leh oo gabadhu gabar tahay oo islaamtu hooyadu tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiima waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxyaabaa noocaas dhalinteenii khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaanna aanu habboonan la ogolayn bay ku baabi'een oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin wax waa dhigan kari laayihiin wax waa baran kari laayihiin marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed yuu lidku yahay haddana waxaa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa mid laba af leh anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya